السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أصحابتي إذا أن جعلها ميل والبواد جوكتان waxaan halkan idinkugu soo gudbi doonaa wararkii ugu dambeeyay dagaalka u dhexeeya Falastiin iyo Israa'iil wargeysyada caalamka waxyaabihii ay ka qoreen haddii aan ku hormaro dagaalka ayaa socdo maalintii 8aad waxaana ciidamada Israa'iil duqeyn xooggan oo cirka ah ay ku hayaan marinka Gaza dadka reer Gaza ayaa ku sii badanaysa dhimashada iyo dhaawacaba isbitaaladii ayaa buux dhaafay ilaa tan wariyaasha ku sugan marinka Gaza waxay soo sheegayaan in xaalad aad u liidato ay ka jirto halkaas halka Israa'iil weli ay qorsheynayso inay weerar dhulka ah ay ku soo qaado marinka Gaza walow cabsi xooggan ay ka hayso inay dagaal infantry ah ay la galaan ururka Xamaas qubarada ka faalato xagga amniga ayaa sheegaya inay Israa'iil u fududayn inay weerar dhulka ah ay ku qaado marinka Gaza waxaana la rumaysan yahay dagaalyahanada Xamaas inay ku dhuumaalaysanayaan dhulka hoostooda Israa'iilna waxay aad baqdin uga qabtaa inay gudaha u gasho marinka Gaza sidoo kale dowladda Turkiga ayaa diyaaradii saddexaad oo gargaar wado ka dejisay meel u dhow Gaza si gargaarkaas loo gaarsiiyo dadka muslimiinta walaalahayna ku dhibaataysan halkaas walow horey ay u sheegtay Israa'iil inay duqeyn doonto gargaar kasta oo loo wado dadka reer Falastiin Masar ayaa horey u xiratay xadka ay la leedahay Gaza si ayna u soo gudbin dadka ka barakacaya dagaalka walow hadda warar soo kordhay ay sheegayaan in Masar ay qorsheynayso inay dib u furto jidka amba wadadii ay soo mari lahaayeen dadka barakacayaasha walow Turkiga diyaaradiisa amba gargaarka u gaarsiiyay lagu waday in Masar ay gaarsiido dadka reer Falastiin warar kale oo soo baxaya sheegaya in Saudi Arabia xiriirkii diblomaasiyadeed ee kala dhaxeeyay amba wada hadaladii maalmahan u socon jiray Sacuudiga iyo Israa'iil oo hakad ku yimid kadib Israa'iil duqeymaha ay ku hayso dhulka reer Falastiin waanu arki doonaa waxyaabihii ku soo kordho wararkaas oo dhan. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.